Ma ogtahay ku dhawaad 1000 sano ka hor aqoonyahan muslim ah ayaa wuxuu saadaaliyay dhibaatooyinka dhaqaale ee maantana haysta ka hor bangiyada dhexe, ka hor saamiyada shirkadaha, ka hor ra'sumaalka xitaa. Wuxuu yidhi hal eray oo cabsi leh: lacagtu marka ay lumiso anshaxeeda, bulshadu way burburtaa. Ma ahayn dhaqaalyahan, ma ahayn bangiyaqaan, wuxuu ahaa filasuuf noolaa qarnigii 11aad. Magaciisu wuxuu ahaa Al-Ghazali. Maanta waxaan arki doonnaa sababta ay fikradihiisu u sharxayaan sicir bararka, kala saraynta hantida, iyo burburka kalsoonida dhaqaale ee dunida maanta. Marka inta badan laga hadlayo taariikhda dhaqaalaha, magacyada ugu horreeya ee la xuso waa Adam Smith, Karl Marx, iyo Aristotle. Laakiin waxaa jirta run badan oo aan la sheegin, run ku qarsoon taariikhda dhexe. Ku dhawaad 1000 sano ka hor, inta aysan bilaaban bangiyada dhexe ama nidaamka casriga ah ee ra'sumaalka, aqoonyahan muslim ah ayaa wuxuu bixiyey digniin maanta weli nuqusayso. Waxaa joognaa qiyaastii sanadii 1100 iyo miilaadiga. Yurub waa sabool, haddana kala qaybsan, welina ka soo kabanaysa qarniyadii madoobaa. Laakiin dunida islaamka waqtiga waa mid hodan ah, furan, kuna tilaabsatay ganacsi iyo aqoon. Magaalooyinka waaweyn, Baqdaad iyo Qaahira, waa xarumo dhaqaale. Ganacsigu wuu sii kobcayaa, hantiduna way sii kordhaysaa. Laakiin Al-Ghazali wuxuu arkayay wax ay dad badani arki waayeen: bulsho hodan ah balse sii dhuminaysa akhlaaqdeeda dhaqaale. Al-Ghazali wuxuu isweydiiyey su'aal halis ah: maxaa dhaca marka ay bulsho hesho lacag ka hor inta aysan helin caqli? Si uu u fahmo su'aashaas, wuxuu eegay hal shay oo asaasi ah: lacagta lafteeda. Lacagtu maxay tahay? Al-Ghazali wuxuu yidhi lacagtu ma aha ujeeddo, waa qalab. Lacagta looma abuurin in la caabudo, in la kaydiyo, ama in lagu faano, laakiin waxaa loo abuuray isdhaafsiga iyo wada shaqaynta bulshada. Al-Ghazali wuxuu lacagta la barbardhigay muraayad. Muraayaddu qiimo ma laha lafteedu, waxaa qiimo u yeela waxa ay soo bandhigayso. Sidaas oo kale, lacagtu qiimo ma laha haddii aysan dhaqaajin nolosha, dhaqaalaha, ganacsiga, iyo shaqo abuurka. Mid ka mid ah fikradihiisu ugu xoogganaa wuxuu ahaa: lacagta la ururiyo waa lacag dhimatay. Hantida la keydiyo ama guri ku qarsoon ma caawiso shaqaale, ma taageerto qoys, ma dhaqaajiso suuq. Balse wuxuu ku tilmaamay in ay qaboojiso keliya dhiigga bulshada. Marka taajiriintu lacagta ay xiraan, sicirka wuu kordhaa, dadkuna way dhibaatoodaan. Laakiinse wuxuu sheegay inay jirto kheyraad. Al-Ghazali wuxuu diiday khiyaano kasta oo ka dhacda suuqa, sida sicirka oo la badbedelo, qiimo aan jirin oo la abuuro, ama dhibaatooyin laga faa'iidaysto. Wuxuu sheegay in faa'iido aan wax soo biirin ay tahay musuq, sababtoo ah suuqa wuxuu ku shaqeeyaa kalsooni. Marka kalsooni jabto, dhaqaaluhuna wuu burburaa. Al-Ghazali sidoo kale wuxuu cambaareeyey dowladaha lacagta qiyaameeya. Xilligiisii, boqorro ayaa yareyn jiray dahabka iyo qalinka ku jirta lacagta si ay u yareeyaan qarashka ku baxaysa soo saaridda lacagta. Tani wuxuu ku tilmaamay xatooyo qarsoon. Waxay dhibaysaa dadka saboolka ah, sidoo kale waxay burburinaysaa nidaamkii iyo kalsoonidii bulshada. Wuxuu saadaaliyey Al-Ghazali haddii marar badan ay dowladda qiyaamayso lacagteeda, dadka lacagtooda ayay ka carari doonaan, waxay kale u guuri doonaan lacago kale inay isticmaalaan. Taasina maanta waan aragnaa, waana xaqiiq jirta oo ka soo wareegatay 1100 sano iyo miilaadiga. Gabagabadii, Al-Ghazali wuxuu fahmay arrin muhiim ah: dhaqaale tirooyin keliya ma aha, waa nidaam ku dhisan anshax iyo kalsooni. Bulsho saboolnimo way ka badbaadi kartaa, laakiin musuq ma ka badbaadi karto. Markii ay cadaaladda lunto, barwaaqada ma sii jiri doonto. Fariintaasi maanta weli waa nooshahay. Haddii ay lacagta ka go'do anshaxa, nidaamku wuu burburi doonaa. Maanta fariin taariikheed oo keliya ma ahan midani, waa digniin maanta inoo taal. Haddii uu muuqaalkan ku siiyey aragti cusub, fadlan subscribe dheh. Taariikhdu waxay haysaa jawaabaha, aniguna waxaan ku tusayaa halka ay yaalaan.